hadda ka hor baa waxaa la yidhi sagaaro waxaa looga taag waayey maroodi. subaxyada ka mid ah baa waxaa la yidhi maroodi ooman oo raxan ah wuxuu ku soo arooray ceel ma'wi ah oo bahalladoo dhan iyo bini aadan wixii yimaadba ay ka harwadaan. subaxii haddii uu yimidba ilaa waxaa tashaday sagaaro meel ay joogtayba atoor ay soo qadimeen oo isu maleeya inuu maroodiga ka awood badan yahay ayaa waxa weye sagaaradii ugu soo horeeya. maroodiga haddii in yar uu ku soo dhawaaday meeshii sagaaradu ay joogtay, mase sagaaradii waxaaba ugu soo horeeya atoor ay sagaarada kale la soo dardaarantay, atoor isku kaadshay oo weheridii ay ka muuqato, bahal isdhaqaystay oo labada gees kolba dhulka inta ku muda majinta qaraaf dhulka oga siinaya, yaa halkaa isagoo ka muujinaya guulguul oo libaaxa guulayo. maroodigii oo la yaaban sagaarka tabaryaradiisa iyo haddana caqliyaradiisa oo isku bacdaadinayo maroodiga intaa la arkay awood la-eg baa waxaa la yidhi sagaaradii kale ee dhabarkiisa jirtay buu wuxuu u diray baa layidhi ergo oo uu leeyahay war hanaloo kala dab qaado annaga iyo sagaarkan. mase sagaaradu dulunka waaba ku dhan tahayba, waa u dhan tahay dulunka. dhammaan sagaarada ceelka joogta waxay ku heshiiyeen oy isku og yihiin in aan biyaha ceelkaa ku jira maanta maroodi ka luqluqan meel uu joogaba. taa waa ka dhan yihiin, balse atoorkan waxaa loo soo hormariyey isaga wax kale maahane waa dagaalyahan baa layidhi shankaroorta baa loo idmaday oo keli ah. halkaa markii ay joogto baa waxaa layidhi ergadii ugu dambeysay maroodigu soo diray. waxay soo direen mid ka mid ah iyagii, waxay ku yidhaahdeen baa layidhi halkaa mar oo jaaniska ugu dambeeya sagaarada bal ku laabo, waxaad tidhaahdaa ceelka maanta aan ka cabno mar dambe usoo laaban mayne. maadaama uu aada u oomanaa qoraxduna ay kulushahay oon ba-anna u hayay, biyihii markay usoo carfeen maba aadin baa layidhi sagaaradii biyihiiba ku kala wareegay. atoorkii isdhaqaysanahayey ee ceelka korkiisa gaaf wareegahayay baa waxaa la yidhi isku dayey inuu maroodiga hor istaago biyaha ka celiyo. sho maroodiguna maba ogaba, gacantii dheereed buu ceelka u ritay. maroodigii oo biyihii cabaya baa waxaa la yidhi sagaarkii atoorka ahaa marna kusoo dhawaadaha layidhi marna gadaal u sikadaa, hadba inuu hirtiyo markuu leeyahayba lawgiisu ka hoos maraaha layidhi dhalaandhisha, markaas buu gadaal oga laabta. haddana suu iskaga noqnoqonahay meeshii maba ogaba maroodiguna biyihii iska cabahayaa. bu marka dambe waxaa maroodigii markuu biyihii cabay ilaa maroodi muddo qatanaa oo koba dhagaxoobay oo calooshii jilif noqotay buu ahaaye. markaas buu saaladu qowday oo waxaa la yidhi ka soo fuqday daaqalka oo la eg malaha fuusta agagaarkeed buu waxaa layidhi asagoo iskiis aanba asaga ugu dan lahaynba buu korka ka saaray baa layidhi. toon baa ku fariistay sagaarkii oo jilbaha hoostooda noqnoqonaya baalkii hadba low ka hoos dusahaya. maroodigii sagaarki waa wuxuu war sagaaradii dhaardhaaranaysa intii ka baxday aawo atoorkii fakfakanayo saaka dhan ordayay maba ogaba ilaa xaarkiisiibaa qariyeyba oo korka unta ka saarayba qabri u noqotay. yacadii kale ama sagaaradii dhadig oo aada ula yaaban atoorkii ay shankaroorta yacadii kale ama sagaaradii dhadig oo waxaa layidhi la yaaban aadna ula anfariirsan waxa ku dhacay atoorkii ay shankaroorta u idmadeen ee ilaa maa saaka waabarkii bootada iyo faanka ku seexinahayay oo iyadoo nabar maroodi oo ulakasuhu ku dhicin toon aan cudubo u wadin inta ka hoos baxmaagay uu ku habsaday meeshii qabri kula noqday ku nafbaxay. sidaas la yaaban baa waxaa layidhi inta ceelkii gees uga dideen oo duurka u baxeen meel faag ah tageen bay tashadeen baa layidhi. dhiiladii iyo colaadii iyo fiiggii ay maalintaa waxaa layidhi sagaaro maroodi ka qaaday waa uga maantaa layidhi ilaa iyo hadda. soo maydnaan arkin sagaaradu inay digadeeda kuusto wax kale ulama dan lahaa layidhi. maroodi bay ku sugaysaa baa layidhi maalin maalmaha ka mid a toon inay dusha ka saarto waxa weye qabri uga dhigto. waxay u maleeyeenba hub nuclearahoo maroodigu diyaarsaday oo gooni ah. waxay u maleeyeen gacanta hadduu ku dili lahaa subaxa inay wax ka caymo lahaayeen oo dagaalami lahaayeen maroodiga baa sagaarka wax ka gaareen. laakiinse uu ku khiyaaneeyey toonkan iyo saaladan uu ku fariisiiyey. marka waxaa la iyaguna digo inay ku dagaalamaan bay rabaan, ma garatay? qaniya kaa fujiso weye inay wax kale inta qaataan ku dagaalamaan si kale iskaga dhiciyaan ma ahane waxayba ilaa iyo markii ka fekerayaan baa layidhi. oo sagaaradu waxaa la dakano wey waxay digadeed u kuuskuusayso. waad aragtay sagaar hadduu hadda dhashay midda ugu horeysa waa inuu inta lagu hasaa isugu soo keeno oo meel isugu keeno. qofkaan arkin waaba yaryahaba qof soomaaliya inta badan aqoonba. maamahayadaasna waa maamahaya caan ah. atoorkii maroodiga celsho digada kuuskuusay oo inuusan fuuq dhihin biyaha tala kusoo gaaray dabaalnima u geysay ma dhugan waraqakiisa. marka waa sheeko aada u xiiso badan oo soo jireen ah. sagaaraduna sheekooyin aada u badan bay leedahay. waxaa kamid ah har sagaaro iyaga kac maahane iyaga durug ma leh baa kamid ah iyo mahmahooyin kale sheekooyin kale aada u fara badan. marka sheekadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa sagaaradii maroodiga u tashatay. waa sagaaro oo sagaaro ah aada garanayso waraqeeda iyo baalowgeeda iyo dhugdhugteeda intay la ag ee maroodiga aad aragtay maroodi cagweyn meel laga dhigan la waayey.
sagaaro balowkaadi maya atoor leeyahay yus atoor leeyahay yurta inta iska kaciyo labada gasoo fiiqfiiqan dhulka saa ka war maroodi laga gacmahayo war sagaaro balowkaadi sidoo maroodi laga gacmahayo leeyahay may inuusa saaka cabin cagta inta ka saaray raarka majinta saa uga saaray balada ka war waa sagaar oo sagaar ah baa maroodi laga gacmahaya. mararka qaarkood soomaalidu markay aragto qof aan u qalmin oo aan ku awood ahayn aan ku tabar ahayn isku taagtaagaya laga celceli laayahay bay mahmahyo usoo qaataan. mahmahyadaas qof kaa tabar liita ama saan haddaad u qabatid aad feeraha ka jibi kartid isagoo ka waran hadduu isku kaa taago waxaad usoo qaadanaysaa mahmahyadaas oo kale. marka ciddii maqashay waaba maqashay, inta badan waa sheeko iska caan ah soomaalida dhexdeeda, laakiin dadka aan maqlin bay macno u samaynaysaa. intii hore u taqaanina waan xusuusiyey. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.